waxa runtii farxad weyn oo insha Allah taala in su'aalaha sidaanu u dhignay sheekh Khadirahe waasicisay markii laga hadlayay dacwadaada iyo dariiqada soo martay dacwada iyo aqoontaadii waxbarashadaadii iyo ilaa ay maaragtay ka timid xaggan dhulka soo martay sida dacwada waqti badan u gelisay dadka la baro Allihii sameeyay oo marka ayagu ay noqdaan dad ilaahay raba oo tubtiisa qaada sidaan ay dunia aakhirba ku badbaadaan marka haddaan hadda u gallo mu'alifaadkaaga waxaad noo sheegtay in markaad risaaladaadii samaysay paperkaaga markaad qortay ama waxaan stationka la dhaho la xiriira sidaad uga baxday jaamacadda markii ay arkeen raggii mentors ku ahaa eegayay muraaqibiinta ku ahaa ay ku sheegeen maadaama aad kitaabkan qortay risaaladaada sidaa noqotay inaad wax qori karto inaad bilowdo markaa inaad wax qorto kutubta waxa maanta farxad weyn inoo horta kutubihii intoodii badnayd inoo laaban yihiin inaan daabacno laakiin hadda intaynu ognahay oo aan dagaal adag u galnay inaynu daabacnay saddex ka mid a kutubaha kii u horreeyay inuu daabacnay wuxuu ahaa safiinat najaa oo dad badan maanta runtii ay aad iyo aad uga faa'iideen oo hawa u badnaadaan dadka localka dhalinyarada maamooyinka waaweyn baraya waxyaalo runtii basic ah waxyaalaha aasaaska waa sidii ay u dhaqmi lahaayeen amba ay ilaahooda u caabudi lahaayeen hadday dahaaro noqoto hadday noqoto ii sheegeen salaadii iyo wixii la mida waxaa xigay oo isagana ilaahay subxaana watacaala uu qadaray inaynu daabacno ethics beyond muslim aadaab ilmuslim الصغير aadaabta muslimka caruurta loogu talagalay yararka ah iyo kii u dambeeyo imika goorweyto ka soo degay dabka laga soo qaaday aadaab lisaan sidii aad u noqon lahayd qof lagu aflaxo qaab hadalkiisa iyo qaab dhaqankiisa iyo sida markaa dadku ay inta badan laga doonay inay u dhaqmaan marka qaanuunka laga hadlayo walow Soomaalidu yiraahdaan amba aad arkaysa meelo badan in aad loo amaanay marka qofkii inuu xaqi rabbiga dabagalo waana tan uu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam amba ayadaha quraanka lagu xusay kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni dad ilaahay jeceshiin aniga dabagala oo macnaheedu yahay markasta idin raacdaan nabiga sallallahu alayhi wasallam waxay idin fududaanaysaa in idin si fala oo la taaban karo idin meel marisaan doonista ilaahay iyo rabitaankiisa iyo jacaylkiisa marka sheekh bal kutubta imika dibadda taala waan aragnay saddexdan iyo qaar kale imika soo socda baladaad yarahe waasiciso kutubta kale nagu soo aadan amba kuwanba hawshaad ka martay iyo dagaalkeenu galay aad bay u fiicnaan lahayd inaad yarahe balad nooga dhacday insha Allah taala دكتور علمي شريف آد بو ماسين سؤال ويدي آد بو ماسين هاي مركلة ولالكيغا أستاذ عبد القادر حاجي وأسونا الضوء هاي آد بو ماسين هين سمع معلومات أن أقارته ماشي أقول بناس السنة حقيقة مركي جامعة القرى في مكة المكرمة عن كبحي بوق جرى عن قرية شري أو كسر في جامعة دا قليل تمنتي هذا بوق قاس آدي آد بان ماركتي أيها علومات أسودوية المشايخ دي مركز إجاس حيسي آدي أسودوية أنا قلت سداس أيها حدنا بوق ير أو حان قرأ سقونا كسابسن ماجستير كمان كان دمية أيام بوق ير سقونا قري أو بقول بيتة أيام قري مركزان أنا قو مركي هربا مركزان وحان قان جاري لقصوا بالله جامعة القرى ما تنكبحي إلى وقت أن شوق إن مسودة السماء إن بوق قرأ مسودة واحد اللي هذا بوق قاس معلم ما كبد الموجود أنا كسبنا عديه وبوق وصحة عن كده بوق قاس مختلف المناهج العلم علمي قبل فنونتي سودان أيام متكستا وحان مسودة كسمستي وحان كوريتي شمدد بان كوريتي ساس يدو أي تهاي أيام وحان قولي بوق وينا أو ماركتي أو ماركتي جامعة جامعة الإسلامية في منصورة مركي عن كقلين تمين هي دكتورة كان قاعدين هي بوق سوقر باليري صدح بقوله بيتشه بوق وحان سوقر يا مركز صدح بقوله بيتشه أيام سوقري بوق سوى حالي هذا المسائل المعاصرة وأثرها يعني في الصيام مسائل معاصر كاي أثرت أي صيام كصون كاي كل هذا هاي يعني هو حق أن جوجنه صون كو حياله وكبره يا وحياله وكو أنصحه قف قدي عربد لجوم مذو قف قدي ماركتي وقف قدي مثلا السجي أو يعني هو حيالها سكو سابسن يعني هذا اسم تال كمركي للجوجو أدي حقنا هدي عربد هذا لجوم هذا صون مكبره هاي مس كبره ما
iyo waxaas kala marka masaa'il aad iyo aad u badan weeye masaa'ilkaas oo 300 page ayaan ka qoray ka bacdi rag khiyaaraho ma sha Allah qalbi wanaagsan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala doortay ayaa waxay u yiraahdeen wixii hore aad meel ku qoratay iyo wixii aad qori lahayd waxba qori kartaa niyaho markaasaan waxaan goostay marka in aan wixii maskaxdayda ku jiray oo hore aan u qoray muddo dheer aan qorayay iyo wixii hadda aan maartay aan helayba intaba inaan buuga ka sameeyo ayaa maartay go'aankaas gaaray marka boogi aan sameeyay waxa kamid ah kaas aan sheegay jaamacad islaamiga aan uga baxay oo doctorada ku qaatay waxa kamid ah boog la yiraahdo مثلا بوغا waxa kamid ah oo hadda dugsiga cilmi oo kor u qaadayay oo aadaab muslim saqiir la yiraahdo boogaasu wuxuu ka kooban yahay 220 page ayuu ka kooban yahay waa boog oo tamthiili ah afar shan qof ayaa matalaysa aaba iyo hooyo saddexdood ilmood ayaa ka hadlaya wuxuuna ka hadlaya 30 baab ayuu ka hadlaya oo abwaabta cilmiga ah aad iyo aad aaba iyo hooyo hadlaya ilmihi ba hadlaya si wanaagsan bay maartay ay nala ahayd ilaahayna waxaan ka rajaynayaa in laga faa'iideysto waxa kale oo ka jiro asagana buug kitaab kale oo axaadiista rasuulka calayhi salaatu wa salaam iyo caqiidada maanta anagu aan haysano axaadiis saxiix muslim iyo bukhari kaliya aan ka soo qaatay oo kitaabkaas waxa weeye 293 page ayaa kitaabkaasi weeye كتاب كله وحنا سمي الحمد لله سفينة يعني شرح سفينة كتاب هذا وسونا دكتور كرو قاضي وشرح وحلي شرح سفينة النجاة كتاب كاس وحنا كدقني أسئلة سؤالي جواب يا أسميه لكن مرك يعني وحنا صاري أدلة قرآني حديث ما صاري ومرك هرب وصلحين مرك كتاب كاس نسلا سيئة هاي كتاب كله وحنا اللي في ما دام أن أركضت في قلوبته ذين قلالين أو قف حارسين هي 20 أيام وحنا نكون فكري كتاب يقول لي قسوة القلوب قلوب تمارتي يعني أكتها يوحي أي كده وبلهاي يمارتي يوحي لك كوسكرين قلوبتني أتكاته كتاب كوساب سنة قري أو مارتي لو كتيبة أو مارتي صدني أفر بيجة كتاب عادي يروي وحن كلا قري إله سبحانه وتعالى قفك وكبر يوم يعيش سائي قرآن كيا أمي مسن أسماء الله الحسنى أنا شرحه أسماء الله الحسنى مركز شرحه وحن كقري الله بقول أفر بيج أو مارتي يعني اسم كستنتو قرآن كوسا أروري آيات قرآن كوسا أروري أيام كقري marka aad iyo aad baan maartay taas ugu dadaalay waxaan kaloo axaadiista rasuulka qol عليه الصلاه والسلام kitaabka la yiraahdo maanta sharx maartay 40 nabawi sharx 40 nabawi imaam nawawi ba asagu buulaha laakiin sharxu maartay 40 oo lijazaani ayaan qoray oo yani aimada yani nik kasta ay 40 xadiis oo neey maxamed ka soo aroorto sharxay marka axaadiis ba ma soo aroortay oo neey maxamed أحاديث أفرت سنة أفرت الحديث ونام محمد أوي لقف شرحات جنة أيوة قلها يعني أهل الجنة وحساس كلا أحاديث صارتي أو كد ذاله مرك يعني إنا كقيب قاته هوشاس وسيد إمام كان النبي وجود أفرت أي مكلو أفرت حديث شرحين بيان وحنا شرح أفرت حديث والنبي كسر صلى الله عليه وسلم وحكى له كم ذا كتاب أدب اللسان أو هذا دكتور كرو قاضي علمي أو كومي كتاب كاسنه صدني تدب بيج أيوة كومي هاي مركي lagu daray ingiriis lagu tarjumana wuxuu noqday 80 page ayuu noqday kitaabkaas hadda markii hore carabiga markuu ahaa kaliya intaas oo laakiin hadda 80 page ayuu ka kooban yahay kitaabkaas waxa kale kamid ah kitaab xagga cilmiga la yiraahdo fiqhiga waxa la yiraahdo fiqhi usul fiqhi waxa la jira marka fiqhiga waa soo sheegnay laakiin usul fiqhi yani important weeye asalkii waa usul fiqhi waxa weeye waa quraanka iyo xadiidka iyo waxa weeye asalkii xadiid fiqhiga waa quraanka iyo xadiidka adilada waxa kale kamid ijmaartay ijmaac ulama al-istihsan yani al-ijtihad adiladaas yani ayaan alifay kitaab ah waxa weeye 112 page weeye kitaabkaas wuxuu ka kooban yahay su'aal iyo jawaab kitaab aad ugu fudud weeye dhankaas aan fududeeyay kitaab kale waxa jira aan alifay oo sarfiga la yiraahdo cilmiga sarfiguna wuxuu ka kelimada wuxuu ka shaqeeyaa awalkeeda iyo dhexdeeda baynama naxwu ka shaqeeyaa meesha ugu dambaysa hadii la yiraahdo fahim la yiraahdo hadaas ma ka shaqeynaya sarfigu faada iyo wuxuu ka shaqeynayaa هذا حرف أخر يحفك ده يوكل شقيا صرفه حرف جدا بين حوايا كشقيا ويصير شقيا مركز علم قاسنا وان كهل الحمد لله رب العالمين كتاب كله وحان قري لهذا طريق الوصول إلى الله سبحانه وتعالى annaga waxa jira checkpointyaal baa jira hadda markay aadaysi Minneapolis rajasada ma joognaa oo checkpointyaal baa jirta marka checkpoint waxa jira oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku gaarsiinay meeshan aad gagtay hadana bari midaas ii gaarsi hadana midaas kala sii samee hadana waa ku sii dhiman tahay dariiq alwusul ila Allah subhanahu wa ta'ala kitaabkaas aad iyo aad muhiim igu aha waxa weeye 102 page weeye kitaab kale asagana waxaan sameeyay xagga aqeedada ahlus sunnah ayaa sharxay aqeedada maartay dadka ahlus sunnada aqeedada kitaabkaas ayaan sharax saaray kitaabkaas wuxuu ka kooban yahay 2
boqol iyo toddobaatan iyo laba bej 300 bej ayuu u dhow yahay kitaabka xagga fiqiga markii la yiraahdo كتاب وحان الحمد لله رب العالمين كل ذلك والسؤال جوابه فقه العبادات وحكوا ما هي طهارة iyo maartay iyo soonka iyo zakada iyo xajka iyo ka kooban yahay fiqh العبادات bal isku yiraahdo waa afar buug waaweyn wuxuu ka kooban 290 page weeye waa iska 300 page iska weeye waxaan kale oo sameeyay alxamdulillah fiqh المعاملات kitaab yiraahdo fiqh المعاملات wuxuu ka kooban yahay maartay al-ankaha wal janayat wal mart wal buyuu afar saddexdaas qaybood weeye wuxuu ka kooban yahay 290 page ka kooban yahay kitaabkaasuna waxa kale oo aan alxamd ka fiiriyay dadka akhlaaqdooda inay halaysan tahay akhlaaqdii xaq fiiri yani al-akhlaaq al-islaamiyya kitaab la yiraahdo oo 200 maartay 21 page ah ayaana maartay asagana aan sameeyay akhlaaq kala hay yani kitaabkaas kitaab aad muhiim weeye xagga nahwaha waxa la yiraahdaa nahwu awla an yu'lama idil kalaam duunahu lam yafhama nahwaha markuu horeeyay la bartay way hadda nahwaha baran ka carabiga iyo quraan iyo inaad sheegtay way kugu adkaanaysaa diinta islaamka marka saas daraaddeed kitaab la yiraahdo kitaab nahwaha ah oo maartay la yiraahdo maartay muqaddimatan fi ilmi nahwi oo ah maartay 93 page kitaabkaas sameeyay kitaab kale waxaan maartay sameeyay oo nahwaha aan sharxay oo maartay doctor maartay ya doctor ab ninka la yiraahdo caalimkaasi kitaab uu iska leeyahay ayaa sharxay oo weyn asaguna kitaab 300 page ka kooban yahay marka waxaan ku soo gabagabeynaa insha Allah taala cilmiga mustalah al-hadith waxa leeyahay jira kitaabkaas waxaan ka sameeyay 206 page weeye mustalah al-hadith baan ayaan ka sameeyay waxa kale takhriij al-hadith kitaab leeyahay jira asagana aan sameeyay oo maartay konton iyo 2 page kitaab maartay kitaab leeyahay jawahir al-hisan quraan ku saabsan jawahir al-hisan quraan ku saabsan yahay waxa weeye 94 page weeye quraanka ayaa looga hadlayaa kali ah ayaa looga hadlayaa waxa kale oo sameeyay kitaab leeyahay muqaddimatan fi ilmi al-adab al-arabi oo aad iyo aad muhiim ah waxa weeye kitaabkaas wuxuu ka kooban yahay waa 595 page weeye markaas aad iyo aad u badan yahay kitaabkaas yani waxa kale oo kamid ah kitaab leeyahay cilmi al-arud wuxuu ka kooban kitaabka 90 iyo maartay waxa weeye iyo maartay 7 page waxaan oran lahaa 90 waxa weeye 90 iyo waxa weeye 97 page weeye يعني ها marka kitaabahaas ayay kitaabihii yani xagga cilmi ahaan aan alfay oo aan ugu talagalay maartay in ummadda islaamka aan ku anfaco ilaahay ku anfaco kitaabahaas ayaa kamid ah waxaan ku soo khatimayaa kitaabka la siirada nabiga kaleey salaatu wasalaam hada rasuulullah kitaab li hada rasuulullah oo siirada nabiga maxamed sallallahu rabbi alayhi wuxuu ka kooban 394 page kitaabkaas marka intaas iyo wixii la midaba ilaahay waxaan ka baryaynaa ugu dhawaanayna ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu aqbalo ummadda islaamkana ilaahay inuu ku anfaco